danka guud ee beelaha Soomaaliland Sultan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir ayaa ugu baaqay labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland inay joojiyaan colaadda isla markaana waa nabadeed lagu dhameeyo khilaafka ka taagan halkaasi. Sultan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa kamid ah hadaladiisii. Wallahi labada dol ee jaarka waxaan leeyahay nabadood dadaal colaad waxaad badan bayn soo aragnay iyo dhimasho iyo hoog la ideeyti la maanta ee wax lagu dagaalamay garan maayo dadkana waxay isu geynayaan oo waxaan waxba ahayn marka in nabadda loo dadaalo ayaan ku goobaabinayaa labada dal oo la ixtiraamo nabadgelyada iyo wada shaqaynta laba ummadood oo isaga dhow ma jirto ummadda kale koonfur ka timaada yaa lama afnaqaano laakiin nimankan jeerteenka aad baynu isugu dhaqanowni waxaan leeyahay dadku hadday isku dhaqanyiinna waa dad gacala dee hala ilaaliyo gacaltooyada iyo nabadgelyadaba colaadi waxba tari mayso wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho Soomaali hore hadal u dhamaystay dhaqo aan ku dhaqday uma arrin meesha yaala waa inta Sultan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir sultaanka guud ee beelaha Soomaaliland waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. runtii waa xukuumad tayo leh oran maayo waa xukuumad lowsaala waa xukuumad tayo leh Muusana fikirkiisa naqaan walaadee waxaan soo hayn dhalinyaradii hore Muuse markuu maagan yahay keligii tashan maayo dad buu la tashanaya arrinku doonayo ilaa uu dadka la tashado sidii nin dhagala sii dayn maayo waa nin degan waqti dheer oo nisaqana Muuse Cabdirashiid Abdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa.